jirka sagaal lix jirka toddoba jirka sidaas lagu gudaa isku raac nadiif weeye waa la soo gadayaa waa sakiin waa la soo gaday waa lagu guday waxaan nadiif ahayn waxba laguma gudo እንኳን ደህና መጡ ማማ ፋጡማ እስቲ ራስዎትን አስተዋውቁልን ነው ፋጡማ መሐመድ አብድ ባላዳም አሁን በምን ስራ ላይ ነው የሚገኙት ማማ ፋጡማ waxaan ka shaqeynaa karatadan ku qoriyeysanaa biyaha ku dhaansanaa marka waan ku raysanaa ayadaan baan ku shaqeysanaa ከዚህ በፊት ምን ነበር የሚሰሩት እርሶ inta karatada nasisay inta wadayna oo la socotayna way mahadsan waxaan fadhiyay maxkamadaha gabdhaha gudi jiro marka ay gadan intaan karatada qaatay oo karatada la siiyo hay'adda ay siisay inta la socotana waa iska daayay gudniinka ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነበር ያደጉት እሱን ይንገሩን እርሶስ ግርዛት አጋጥሞት ነበር ወይ miyigan ku dhasho xoolo dhaqatan markii hore ahayn markii ay gadan xoolaha dhamaadeen magaalada soo galay oo beer abuurtaan noqon በስንት አመት ውስጥ ነበር ግርዛት የተፈጸመቡት hanjare sidii jirbana እርሶ እንዴት ወደ ሴት ልጅ ግርዛት ገቡ xirfada gabdhaha waa la gudaa waa la qodxaya markii hore waa la iska daayay markii dambe oo iga wacdigii batay oo dadka u batay maxal waa la daayay ግርዛትን ማን አስተማሩትኝ እና ስንት ነበር የሚከፈሉት ግርዛት ሲያደርጉ reeriyada sidii loo samaysto kala way reeriyada waa la sameeyaa harkaha waa la socdaa ከስንት እስከ ስንት እድሜ ያሉ ሴቶችን ነበር እርሱ ያኔ ግርዛት የሚያደርጉት sidii jirka sagaal lix jirka toddoba jirka sidaas lagu gudaa isku raac እርሱም ከተገረሱ ሴቶች መሃል እንደመሆኑት ህመሙን እንዴት ያዩታል gudniinkan waa la dareemayaa maxaa laga qaadayaa ilfishin baa laga qaadayaa jirka laga qaaday midan kaate oo iyadan kalena lagama qaadayo ማማ ፋጡማ ያኔ ግርዛት በሚያደርጉበት ወቅት ስንት አይነት ግርዛት ነበር የሚያደርጉትና ሴቶቹ ላይ ህመሙ እንዴት ነበር gabdhaha meeqa nooc laga kuwan la qodxaynaya ee la tolhaya jirro badan baa la soo xiriiraysa oo maxay ahayd ilfishinka ayaga markii la jeexo oo maxay ahayd xanuunka ku kordhayo ay sakaraadayaan dib badan bay leeyihiin oo kaliyaha xanuunayo ugucdo dhan baa xanuunaysa gudniinka waa midkan kale oo asagana fircooniga moogiya midkan kale oo sunniga ግርዛት ሲፈጽሙ በምን አይነት መሳሪያ ነበር የሚፈጽሙት ንጽህናውን በተጠበቀ መልኩ ነበር ወይ ሴቶችን ለተጨማሪ አደጋ በማያጋልጥ መልኩ ነበር ወይ ሲፈጽሙ የነበሩት nadiif weeye waa la soo gadayaa waa sakiin waa la soo gaday waa lagu guday waxaan nadiif ahayn waxba laguma gudo ስፌቱን ሲያደርጉ ደግሞ በምን ነበር ስፌቱን የሚያደርጉት የነበረው kuwa la qodxaynaya waa la gudi markii la gudo kadib baa qodax ayaa lagu qodxayn markii la qodxaya malmalka iyo la saaraya burka ለምንድን ነው የሴት ልጅ ግርዛት የሚፈጸመው ብሎ ያስባሉ markii hore lama aqaan iska gudo gabdhaha oo maxay ahayd raggayoon kugu caayin oo siyaaraha habkaas lagu hadlahayo oo raggayoon caayina waa la sii qabayoon dhihin baa la lahaa marka sidaas ahayd eegana waa laga gudbo waa laga ilbax አንድ የተገረዘች ሴትና ያልተገረዘች ሴት ምንድነው ልዩነቱ ተብሎ ነው በማህበረሰቡ የሚታየው hadda waa la iska daayo ninna ma wadanayo maxay ahayd waagi hore ahaa waxaas hadda waa la iska qanab ma la siina waa la iska day waxay ku kala duwan yihiin ba malaha waagi hore maxaa laga aaminsanaa dhibkan badan iyo waxan badan baan jirin oo marka waa la iska wadwatayaan la dhihin baa la እንዴት የሴት ልጅ ግርዛት አስከፊና ጎጂ ባህል እንደሆነ አወቁ أنا بعذر الكوكان أنا بس تين قضاء أنا بلحن الصداي وعذر كوا إياه سدا بعذر لك قاعد أنا بلحن الصداي ሆዩ ይሄን ግርዛት ለስንት ጊዜ ሲፈጽሙ ቆዩና ሰዎችስ በድብቅ እየመጡ ልጆቻቸውን እንዲገርዙሎት እየጠየቁት አላስጨነቁትም ወይ ما واحد يستعمل الهيون ما لحن وين سكداي حتى markii hore tana maxay hayday shabaadiya baan hayno waa la iska gudhayo gabdhaha markii ii gud la dhaho markaan meeshan soo galayna waa la iska joojiyay ግርዛት በሚያደርጉበት ወቅት ምን ነው ባላደረኩት ይሄ ነገር ቢቀርብኝ ብለው የጸጸቱት ያጋጠሙት ነገር ካለ waan leeyahay wacdi badan baa dhaco kasta la iska daayay la gudniinta gabdhaha la gudayo fircooniga ahaa sidii baan ku daayay eegana waan sidii baan ku daayay mana waa la iska daayay maxay hayday dib badan baa ka imaado marka wacdi badan baa la is wacdiyo wacdi badan baa ka imaado waa la iska daayay hadda ማህበረሰቡ ላይ ግርዛት እንዲቆም ምን እየተሰራ ነው እርሶ ምን አይነት ትምህርት እያስተማሩ ነው ምን እያበረታቱ ነው ምን አይነት እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ይገኛሉ
kaalintan ka geystay maxaa weeye maxay ahayd wacdiga baa batay wacdiga hadduu batayna culimadii oo dhan baa tiriyeska የተሻለ ስራ ቆንጆ ስራ አግኝተው የተሻለ ገቢም አግኝተዋልና አሁን ላይ ያሉት ስራ የሚያኮራና ደስ የሚል የእርሱ ጥንካሬ የሚያሳይ ነውና ይሄን ስላደረጉ እናመሰግናለን። ሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በእኛ ይብቃ ብለው እዚህ ላይ ስለደረሱ እናመሰግኖታለን። ጠንካራ ሴት ነት። አለ ያ እሺ ሹክራን ሆዩ